Israel ayaa soo saartay digniin loo dirayo dadka shacabka ee ku nool gudaha dalka Iiraan abaaro 9 habeenimo ee caawa. Iiraan 30 daqiiqo ayay naga horeysaa marka la eego saacadda caadiga ah oo marka ay adiga ku tahay 9 habeenimo waxa suuragal ah in iyaga ay u tahay 9 iyo 30 daqiiqo. Hanjabaadan ayaa marka Israel waxay u jeedisay dadka shacabka ee reer Iiraan inay ka fogaadaan dhammaantood adeegsiga tareenada sida lagu sheegay qoraalkan oo lagu daabacay luqadda Carabiga, afka Cibraaniga iyo sidoo kale afka Beershiyaanka waxaana la doonayay in lagula hadlo dadka shacabka ah ee reer Iiraan. Warbaahinta Israel ayaa si weyn u baahisay qoraalkan waxaana lagu yiri Israel waxay digniin u jeedinaysaa dadka shacabka ee Iiraaniyiinta inay ka fogaadaan adeegsiga tareenada iyo sidoo kale wadooyinka tareenada lamana sheegin sababta rasmiga ee ka dambaysa. Qoraalka waxaa lagu yiri sabab la xiriirta amnigaada waxaan ka dalbanaynaa inaad ka fogaato goobaha tareenada ilaa 9 habeenimo ee gudaha dalkaasi Iiraan. Ha ku safrin tareen sidoo kalena ha u dhawaanin goobaha tareenada laga raaco. Sidaasi ayaa lagu sheegay qoraalkan oo barta Twitterka lagu daabacay warbaahinta Israel ama qaybta ciidamada Israel ee afka Farisiga. taasina waxay ka dhigan tahay Israel inay doonayso inay goobahaasi ay beegsato. Saacadii ugu dambeeyay waxaa jira hanjabaado waaweyn oo ku saabsan in la beegsan doono xarumaha wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dawladda Iiraan. Iiraan ayaa saacadihii ugu dambeeyay dhankeeda la kulantay weerar culus waxaana lagu bartilmaameedsaday warshado muhiim oo ku yaala koonfur galbeed dalkaasi iyo agagaarka magaalada Asfahan oo dalkaasi Iiraan ah. Dhankeeda Iiraan ayaa waxay duqeysay xarumo muhiim oo ku yaala gudaha Israel. warshado ku yaala magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale ayaa kamida goobaha la kulmay weerarada culus. Sidoo kale arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo sida la sheegay qaar kamida Mareykanka diyaaradihiisa dagaalka B2 loo yaqaano uu soo daabulay loona soo daabulo gobolka Bariga Dhexe. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. sidoo kale waxay wararku ay sheegayaan sida wargeyska ee Dacood Axranood uu baahiyay in ciidanka Israel ay dareemayaan saameyn aad u weyn kadib markii Iiraan gantaaladeeda ay ku dhaceen bartamaha Israel. sida la sheegay ilaa iyo 6 ruux ay Israel leedahay oo ku dhaawacmeen 3 mawjadood oo kala duwan iyo gantaalo ku dhacay deegaanka loo yaqaano Ramad Hasharon iyo deegaanka Bani Brak iyo koonfurta Israel. Sariga digniinta ayaa isqabsaday goobo dhowr ah kadib markii gantaalo ee Iiraan ay waaberigi maanta ay ku weerartay bartamaha Israel iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dhismayaal ay gubteen magaalada Eiladna waxa la diiwaan galiyay inay dhowr gantaal ay ku dhaceen. wararku waxay intaas ku darayaan ilaa 6 goobood oo kala duwan inay ku dhaceen maanta gantaalada dawladda Iiraan iyadoo barqadiina la sheegay inay dhismayaal badan ay burburiyeen. inkastoo Israel gantaaladii ugu dambeeyay ay sheegtay in aysan waxyeello ka dhalan marka laga yimaado dhismayaasha burburay iyo gawaarida gubtay. wargeyska ee Dacood Axranood ayaa soo bandhigaya muuqaalada muujinaya saameynta hantiyadeed ee ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay ee dawladda Iiraan. sidoo kalena gantaalada qaar ayaa la sheegay inay ku dhaceen bartamaha magaalada Tel Aviv iyadoo Iiraan dhankeeda ay dirayso hanjabaad culus oo ku wajahan dhanka Israel. saacadii ugu dambeeyay waxa wararku ay sheegayaan in dawladda Sacuudiga iyo qaar kamid ah dalalka qariijka ay baqdeen ay dareemeen iyadoo laga baqayo Iiraan inay beegsato kaabayaasha dhaqaalaha. waxaana dib loo furay buundada dheer ee King Fahd lagu magacaabo isku xirta Bahrain iyo dawladda Sacuudiga kadib markii maanta barqadii sida la sheegay la xiray. deegaanka Ramad Hasharon qaraxyo culus ayaa ka dhacay. Xisbullahna dhankooda waxay sheegeen inay gantaale ku weerareen deegaanka lagu magacaabo Shlomi halkaas oo Israa'iiliyiinta deegaameen ay ku sameeyeen. ilaa 10 goobood oo kala duwan oo bartamaha Israa'iilna waxa la sheegay inay u badan tahay inay gantaalada Iiraan ay ku dhaceen barqanimadii maanta. magaalada Tehran dawladdu waxay sheegtay ilaa 15 ruux inay dhaawacmeen 9 kalena inay dhinteen kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay gantaale ay ku weerareen mid kamid ah xaafadaha ku yaala galbeedka magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iiraan ah. gudaha dalka Lubnaan waxa lagu waramayaa dhismayaal in Israa'iil ay burburisay kadib markii gantaale halkaas ay ku garaaceen. xaaladdu aad bay u adag tahay, wada hadallo ayaa soconaya waana la isku fahmi laayahay iyadoo Iiraan ay ka soo horjeedsatay heshiis xabajoojin ku meel gaar ah oo madaxweyne Trump uu doonayo in dagaalka lagu soo gabagabeeyo. madaxweyne Trump ayaa maalin kale oo dheeraada ku daray qorshihii markii hore uu doonayo inuu ku weeraro kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah. hanjabaadaasi marka laga yimaado dhinaca kale Israel waxaad moodaa inay kaabayaal muhiim ay beegsatay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo Iiraan gantaaladeeda la sheegay inay ku dhaceen warshado ku yaala magaalada Haifa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Israel. arrimahan waxyaabaha ka soo kordhay oo kula wadaagi doona aad baad u mahadsantahay.